xogayaha guud ee xusbiga mucaaradka wadani mudane maxamed cabdilaahi urcade oo warbaahinta kula hadlayay xafiiska ay ku leeyihiin magaalada Hargeysa ayaa shaaciyay inay xilalkii ka qaadeen mas'uuliyiin ka tirsan xusbiga wadani ahaana gudoomiye ku-xigeenka gobolka Maroodijeex iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan waaxda degmooyinka caasimadda Soomaaliland Hargeysa. xogayaha guud ee xusbiga mucaaradka wadani oo arintaasi faahfaahinaya ayaa waxa uu yiri sidatan: وهرين waxaan jecelahay inaan warbaahinta u sheegno isaga ay isku yimaadeen guddiga hoggaanka xisbiga guddiga fulinta kana wada hadleen shaxmarinta ashxaas ka tirsanaa xisbiga wadani xilli loo hayay arrintaasi oo go'aan ka soo saaray xisbiga wuxuu xisbigu go'aamiyey markuu eegay shaxmarintii iyo howlihii xisbiga iyo xeerarkiisii uu eegay in cabdirasaaq iid maxamed oo ah gudoomiye ku-xigeenka gobolka Maroodijeex, mudane cali cabdi muuse oo ah gudoomiyaha degmada Xardagax, cabdixakiim gaaxnuug cilmi, khadar maxamed xuseen oo afartuba golaha dhexe in laga qaado xilalkii ay hayeen oo ah gudoomiye ku-xigeenka iyo gudoomiyaha degmada iyo golaha dhexe xisbiga oo afartuba ay ka mid ahaayeen iyo xubinnimadii xisbiga iyadoo la raacayo xeerka xisbiga. laga bilaabo maanta wax yara ama xubinnimo ah oo ay xisbiga u hayaan ma jirto haba yaraatee. dhanka kale waxa uu xogayaha guud ee xusbiga mucaaradka ee wadani uu tacsi u diray eheladii iyo qaraabadii ay ka baxeen dadkii ku naf waayay doontii lagu duqeeyey marinka badda cas. dad badan oo reer Somaliland ay saamaayeen oo wixii dalka inka taa lagu dhuftay dadkaasina xukuumaddu ilaa maanta aanay ka hadal, aanay tacsiidaynin, aanay wax dacwada oo caalamka ay u gudbisay cidda u gudbisay aanay jirin haba yaraatee sida ummadda reer Somaliland iyo warbaahintuba ay ka markhaatiga yihiin. aad iyo aad baan uga xunahay mas-uuliyad darrada xukuumaddu muujisay ee ubaxeeda lagu laynayo badaha aanay marna ka hadlayn, wax tixgelinana aanay siinin. waxaan ugu baaqaynaa xukuumaddu inay si degdeg ah arrintaa uga hadasho oo ay caalamka u gudbiso. kalena waxa weeda ugu soo jeediyay xukuumadda Soomaaliland raashinkii mucaawinada ahaa ee dalka Itoobiya ugu soo deeqay dadka ku tabaalaysan galbeedka kana soo hayaamay bariga Soomaaliland oo ilaa hadda aanay xukuumaddu waxba gaarsiin. ayagoo xoolo ay ka dhamaadeen haddana ay marayaan in dadkii dhinto oo laga siiba gobolada bariga Soomaaliland oo runtii aanay xukuumaddu sidii loo baaraayay si u dhowtoona aanay ka yeelin. gurmadka fiirsana aanu ahayn gurmad u cuntama ummaddaa dhibta haysa. waxaan u aragnaa runtii inay xukuumaddu talxiis ku jirto oo abudabay waxaad moodaa in abudabay laga xukumo xukuumaddeeda oo abudabay ka shaqeeya wasiiradeeda oo ay halkaa amar ka soo qaataan, waayo 24 saacadood waxay u gaala baxayaan abudabay oo ay talxiis u tegayaan iyagoo dadkoogii mararaayo intay xoolahoogi dhammaadeen troolkeena haysanina xoolaha ahaa xoolihii dadkii baanay warhayn iska daa xoolaha u gurmadaan kuwa jaale istoolada xidhan ee ummaddu ka qaylinayso ee laynoogu tababacay